tan iyo burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya waxay wajahaysay caqabado bini'aadanimo iyo burbur ku yimid kaabayaashii dalka oo ay ku jiraan kuwii waxbarashada. Xasilooni darrada iyo abaaraha ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa sababay cunno yarida, sicir bararka, kororka barakaca dadkii deganaa deegaanadii ku wanaagsanaa tacbashada iyo wax soo saarka ayaa sii wiiqay awooddoodii wax soo saar beeraha iyo xoolaha ee dalka, taas oo kordhisay xaddiga faqriga iyo macluusha. helitaanka xadidan ee adeegyada aasaasiga u ah nolosha bulshada oo ay la socoto ku tiirsanaanshaha badeecooyinka dibadda laga keeno ayaa hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la helo xalal maxalli ah oo waara, iyada oo xoogga la saarayo dhinaca waxbarashada ee la xiriirta farsamada iyo wax soo saarka. bacdamaa dadka Soomaaliyeed ay ahaayeen dad ka soo kabanayay burbur ee ku dhacay dalkooda oo dhowr iyo 20 sano markaas runtii marayay. waxa laga fikiraya waxay ahayd say dadkaani u heli karaan inay ayagu ku filnaadaan waxa ay cunayaan wax soo saarka dalkooda bacdamaa dalkeenu uu yahay dal ilaahay ku manaystay khayraad fara badan, hadday tahay badda, hadday tahay xoolaha, hadday tahay beeraha. waxaan aad isu dul taagnay dadkaani dhibaatada inay ka bixi karaan oo kaliya markay ku filnaadaan inay soo saartaan wixii ay cuni lahaayeen. And what we saw up to 2011, we worked on the emergencies, relief distributions, some other small projects, water wells, construction of the mosques, many places we helped, and training programs was very important on that time. But after 2011, we believe that the future of the Somalia is education. We invest on the education. sanad kadib abaartii ka dhacday dalka 2011 ayay hay'adda Zamzam oo tan iyo burburkii ka shaqeynaysay arrimaha gargaarka iyo waxbarashada waxay aasaastay machad cilmiga beeraha lagu barto, iyadoo kaashanaysa hay'adda IHH ee walaalaha Turkiga, kaas oo lagu tababari jiray dhalinyaro u badan qoysaska beeraleyda ah. sanadkii 2010 hay'adda samafalka ee Zamzam Foundation iyadoo kaashanayso saaxiibadeeda caalamiga ah waxay xoog saartay sidii waxbarasho sare oo xirfadaha casriga ah ee dalka looga baahan yahay sidii dalkan loo hirgelin lahaa. waxay sameysay dugsi tababar beeraleyda Soomaaliyeed oo u dambeyntii isku bedelay dugsiga sare ee beeraha. There is a very good potential. Naturally, human resources, there is everything, but there is no enough education. We start with the education with the agriculture school. muddo kooban oo guulo ah kadib ayaa waxaa la go'aamiyey in machadkii loo bedelo kuliyadda cilmiga beeraha lagu barto oo noqotay kuliyaddii ugu horreysay ee lagu aasaaso jaamacadda Zamzam ee culuumta iyo tiknoolajiyadda sanadii 2014. İşte bugün 1. fakültesini açacağımız üniversitemizin burada açılmasının temel amaçlarından birincisi de buradan mezun olacak olan yetim kardeşlerimizin yüksek öğretime devam etmelerini sağlayabilmektir. sanad ka hor aasaaskii jaamacadda ayaa la bilaabay dhismaha xarunta weyn ee jaamacadda si loo helo deegaan ay ku dhammaystiran yihiin agabkii waxbarashada iyo xarumihii baraatikada. sanadkii 2017 jaamacaddu waxay si istiraatiijiyad leh u ballaarisay xarumaheedii waxbarasho, iyada oo la furay xarumo cusub oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan gobollada Bay iyo Shabeellada Dhexe, oo jaamacaddu ay xarumo ku yeelatay magaalooyinka Baydhabo iyo Jowhar si loo gaarsiiyo waxbarashada bulshada ku nool dhulka wax soo saarka leh. wixii intaasi ka dambeeyay jaamacaddu waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay soo saaridda aqoon-yahano qayb ka noqday horumarka dalka ee dhinaca farsamada iyo wax soo saarka. ujeedooyinkii aan u asaasnay jaamacadda Zamzam culuumta iyo tiknoolajiyada runtii waxaan dareemaynaa inay meel fiican aan ka soo gaarnay. jaamacadda Zamzam maanta waxay soo saartay arday xirfadihii waxbarasho ee cilmiyeed ee jaamacadda loo asaasay leh.
10 sano kadib waxaan aad ugu faraxsanahay in saameynta jaamacadda ay ku yeelatay dhinacyada caafimaadka, wax soo saarka beeraha iyo cuntada laga dareemayo waddanka qaybihiisa kala duwan. Greenhouse technology-yadii ugu horreeyay dalka markii la keenayay Soomaali badan runtii aad ay ula yaabanayeen, laakiin hadda waxa ay noqotay arrin caadi ah oo qof kasta uu ku dhiiran karo in dhul yar oo kooban uu wax soo saar badan oo dhinaca qudaarta kala duwan oo ka ganacsan karo, kana soo saari karo, shaqana ku abuuri karo. toban sano kadib maanta jaamacadda Zamzam ee Culuumta iyo Tiknoolajiyadda waxay ku tallaabsatay guulo la taaban karo oo la xiriira dhinacyada kaabayaasha waxbarasho ee jaamacadda laga bilaabo fasallada ilaa xarumaha tiknoolajiyadda iyo cilmi baarista. Waxay kaalin muuqata ka qaadatay nidaamka wax soo saarka beeraha ee dalka, iyadoo waddanka keentay nidaamka beerashada greenhouse farming iyo qaabab kala duwan oo beerashada casriga ah. Sidoo kale jaamacaddu waxay kaalin soo nooleyn ah ku yeelatay dhinaca wax soo saarka xoolaha. Mashaariicda guuleystay ee ay hirgelisay waxaa ka mid ah mashruuca horumarinta wax soo saarka digaagga oo wejigii ugu horreeyay la bilaabay sanadii 2021. Tiknoolajiyadda casriga ah ee loo isticmaalo beeraha, laababka casriga ah ee caafimaadka, laababka lagu horumariyo qalabka tiknoolajiyadda iyo kuwa lagu dhiso barnaamijyada ku shaqeeya garaadka macmalka ah. 10 sano ee la soo dhaafay jaamacaddu waxay horumar lixaad leh ka samaysay dhinaca tiknoolajiyadda. maanta waxaan taaganahay in ardaydeennii oo ka qalin jebisay jaamacadda markay qalin bedelatay inay marayaan heer ah inay awood u yeesheen inay shirkadaha dhanka tiknoolajiyadda aad ugu sarreeyaan bay ka sameeyaan internship amba ay projects ka apply gareeyaan oo grants ay ka helaan. runtiina waa waxyaabaha oo taabashada u leh. hadafkeenu wuxuu yahay in jaamacadda Zamzam ay noqoto hub amba goob laga soo doonto cilmiga tiknoolajiyadda kaliya ma aan Soomaaliya, guud ahaan Afrika, gaar ahaan Gees Afrika, inay noqoto hub la isugu imaado oo looga doodo tiknoolajiyadda iyo meel laga hogaamiyo oo cilmiga iyo tababarada iyo researchka amba cilmi baarista lagu sameeyo ay noqoto research runtii saameyn ku yeelan karo baahiyaha amba Soomaaliya ay qabto si gaar ah, guud ahaanna baahiyaha ka jira bariga Afrika ee dhanka tiknoolajiyadda la xiriira. 10 sano ay shaqaynaysay jaamacadda Zamzam waxay aasaastay xarumaha hal-abuur iyo cilmi baaris ah oo ay ka mid yihiin xarunta hal-abuurka iyo cilmi baarista, xarunta beerashada waarta iyo daraasaadka deegaanka, xarunta wax soo saarka digaagga, xarunta hal-abuurka tiknoolajiyadda iyo xarunta hal-abuurka iyo kobcinta ganacsiga ee Bina. Jaamacaddu waxay martigelisay bandhigyo iyo shirar cilmiyeedyo badan oo dhinacyada beeraha, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo ganacsiga ah si loo falanqeeyo ama loo hindiso xalal wax ku ool ah ee qayb ka noqon kara korriinka iyo horumarka Soomaaliya. 10 sano kadib inteen rabnaa inaan hiigsanno. runtii 10 sano dalka wax weyn ayaa iska bedelay. waxaa laga soo gudbay caqabado aad u fara badan. runtii istiraatiijiyadda 10 sano soo socota markii aan ka fikiraynay waxaan ku salaynay inaan qayb weyn ka qaadanno in uu dalka yeesho xirfadley awood u leh in ay noqdaan workforce-ga dalka. higsiga ugu weyn oo ay jaamacaddu rabto inay gaarto waa inay noqoto goob loo soo doonto waxbarashada kuna astaysan tayo iyo cilmi baaris. haddii waxbarashada la qabanayo aysan tayadii loogu talagalay lahayn waxbarashada la bixinayo ama aysan la soconin cilmi baaris taasoo xalinayso caqabadaha ka jira markaas goobta aan laga shaqeeyo waxay sameyn micno gaar ah ma sameynayso. sidaas darteed higsiga koowaad oo ay jaamacaddu leedahay waa inay noqoto koob lagu soo doonto waxbarasho tayo leh lana socoto cilmi baaris lagu xalinayo caqabadaha bulshada haysto.